وأبا له لبع عرورة وحو مع سلامين يا عرورتيسا أبو سوق شقتك يا أبو عبد نسيتك يا هيدا أبو هي سود عوي يقول دورمي يا أبو يا أبو أنا أدري كلام إبراهيم عمدي وحو قبتها shaqadan in la qabtaa way adag tahay subaxii waxa uu ka soo kalaha degmada Maxamed Mooge waxaana uu soo shaqo taagay degmada Maxamuud Haybe isagoo wata gaari gacankiisan waa muwaadin qabta shaqo aan loo dirin balse mudan in la dhiirigeliyo إبراهيم عمدي waxa uu maalin walba u soo kalaha wadooyinka burbursan ee magaalada Hargeysa waxa uu buuxiyaa wadooyinka burbursan isagoo aysan jirin cid ku qasabtay shaqadan walaalahay wadalkaaga ciise wuxuu qabsay ودرجة نفتح ودرجة سحلة درجة سحلة وين إسكا حقبسة إسكا حقبسة وإسكا حقبسة ودرجة سحلة مارت qoraxda ku bilaabantaa maalintii oo dhan waxay ku gaadhaa gabal dhaca balse waxa uu muujiyay kartidiisa muwaadinimo إبراهيم عثمان مختار كنا ناس دار عمدي waxaan ka shaqeeyaa wadooyin buuxbuuxinta muddo 2 sano baan ka shaqeynayay wadooyinkan ka shaqeynayay waxyaabo badan ma arkay wadooyinka meelo badan burbursan baan buuxbuuxiyaa waxaan tarana wax ku helo ama wax igu siyaa ma jiraan hay baabuurta gaadiidka waxay dhibtahayn wax kale dhaqaale kale soo gala ma jiro waxa kale kamid ah in garanaysa dadku way igu jeclaadaan arrimahan qabanayo Ibrahim Amadi intii shaqada uu waday waxa uu sheegay in maamulka dawladda hoose ugu hanjabay xarig sidaan arkay waxa kamid dawladda hoose oo sida maarkuxiyeenka kale ugu hanjabeen xarig ugu xuli doonaa dawladda shaqooyinka joojin waayo shaqada inta wadooyinka hagaajinaya waa waddanka u dhashay baanahay sidaa darteed muwaadinadeed waxaan jecelahay inaan ku buuxiyo wadada Ibrahim Amadi waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ka codsaday in lagu dhiirigeliyo shaqada culus ee uu qabto markaas darteed waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dalka Soomaaliland madaxweyne waxaan leeyahay shaqada muwaadinimada buuxinta waligeed waan jecelahay waxaan jecelahay madaxweyne ugu dhiirigeliyo inaan qabto sidaas aan jecelahay anigoo ah Amadi oo waddankan u dhashay jecelna mar walba qabto shaqada Ibrahim Amadi waxa uu dhiirigelin ka sugayaa bulshada Soomaaliland maadaama uu qabto shaqaan cid u dirin balse bulshada faa'iido u ah Cabdiraxmaan Ordogan Nabad TV Hargeysa